sidaan u malaynayo film codays markaan bilaabay anu gidhashay ilmo dhalay hadda ana runta kuu sheegaya xaqiiqada waxay tahay soo xisaab wixii film cod socda 4,000 iyo kalkoos waa dhaafaa malayna war ninkaas aniga garanaya ninka ma dhiman waxaan kaa doonayaa nolol ama geri ninka inaad gacanteeda soo gelido ingiriis iyo carabi iyo talyaani iyo af urdu iga joojiya iraahdaa markaan la joogo waa waxaan tirayno geli af soomaaligeena garsoor cid aan fasax weydiisanaya ma laha aniga dalkayga waa ka qabanaa tuugadan khaa'imiinta magacaygu waa saalax macalin cabdulle saalax dheere tani waa sheekadayda ani degmo ka tirsan gobolka galguduuda ku dhashay oo la yidhaha galhareeri barta anoo yar hooyaday aabay iga soo kaxeeyeen xamar aan soo galnay waxbarashada intaan ka bilaabay iskool intaan ka dhamaystay jugti maxamed siyaad barraan dhacday waa la kala qaxay iskool meeshaasuu ku xirmay waxbarasha meeshaasay ku xirantay wallaahi horta barnaamijkan hadda aan ku noqday oo bulshadu ay ugu taqaano ani marnaba xisaabka ma igu jirin ani dhanka ganacsiga ayaan u badnaa laakiin waktiga aan wax walbaba ku barahay barnaamijkan maadaama oo dagaal ay dhacdhaceen baagamuunta dhallinyarada iska ahayd wiilal oo saaxiibadeeye oo af urduuga yaqiinay barnaamijka wax waa ka faahfaahmaynay oo aad aan filmaanta u jeclaa jiray macnaha daawashadooda waa xiisay jirin wiilashii aan maalin isku soo qaadnay qalabka marka oo wax lagu codeeyo af urduug ma taqaanin haa waxaa jiray oo horay aan u fiirsanay filim dil amir khan oo dil la yidhaahdo oo xilligii maxamed siyaad barre la codeeyey sida soomaalidu ay aada ugu xiiseynayaan meesha waxaa nooga baxday in ganacsi aan ka samayn karno okay anaa ku dhiirigeliyey waxaan idhi isku dayay maalintii dambe waa xusuustaa filim ramshastera la yidhaahdo anoo la fadhiy oo dadkiisu aada u badnaayeen waxay dhaheen saalaxow nin naga qabo ninkaan ka qabta ninkii ma ka labalabayn toosaan u geliyey waa ila yaabeen markaase waxay dhaheen maanta maxaad noogu fiirsanayday 3 filnay marka hortay aniga ay sameeyeen maxaad noogu fiirsanayday maxaad noola coday weyse waxaa yidhi horta wax macnihiisa in aan fahmo aniga sharcigayga wuxuu yahay waxaan macnooda aanan fahmin dalaq ma iska dhaho waxa macnooda inaan fahmo aa ka horreey bas meeshaan ka bilaabno hadda ka horreeyey waxaan ku moodayay inaad canug yar tahay laakiin waxaad taa tugtug dhala oo waxaad doonaysa maya inaad hadalka aad ka rumayso horta saamayn markii la yidhaahdo shaqada waktigaas midda ka hor taallo saamaynteeday leedahay aniga isbeshali saalaxaan markaan ka hadlaayo saacaddaas shaqada iyo hor taallo saamayn ayay igu leedahay ma faraxsani intay hor taallo shaqadaas farxad waxaa igu sokeeda markaan iska hor wareejiyo oo aan dhammeeyo shaqada furiini waxbay dalbanee furiinka waxaa shuruudaan ku xiray shuruudaasna waxaa waa inay gabadha ii soo wareegaan waa run af soomaaliga waa naxwi
dhallinyarada qaar inaynan fahamsanayn ilaa iyo hadda aad mooddaa af soomaaliga laga rabo annaga waxaan tirnaa luuqad kale bulshadeenna aan macnaha luuqaddaas iyo dalkaas dabeecadihiisi iyo dhaqankiisi aan u sheegaynaa waxay nagu fahmi karaan af soomaaliga af soomaaliga marka halow haddaan ku celiyo halowdii inaan ka tira maaha haay inaan idhaa maaha waa ku salaami inaan idhaa waxa waa firi wax baan turjumaad leedahay isla luuqadda haddaad ku celido wax aad turjunta male macnaha inta oo dadku waxyaabo badan ayn fahamsanaynaa jira waa u sheegaa war adiga ingiriis iyo carabi iyo talyaani iyo af urdu iga joojiyaa idhaahdaa markaan la joogo waa waxaan tirayno geli af soomaaligeenna macnaha meelo oo aan saga eegna waa jiraan oo macnaha luuqatulcarabiya sukayna keento laakiin maxaa la rabaa af soomaali naxwiyaan leenaha af soomaaliga naxwiga ahaa in macnaha bulshada loogu gudbiyaa wanaagsan waxa ma og tahay 30 sano ka hor isla meeshaan hadal laygu yidhi ayaan doonayaa maanta anigana in aan kugu idhaahdo ani ruuxaygaa jecel qaybta siyaasadda qaybta sharciyada qaybta oo ciidamada macnaha meelaha adag waxyaabahaas oogaa waxaad mooddaa ani in aan ka war adagahay dhallinyarada marka meelahaas waxaa laygu dhiibaa qofka lagu dhiibi maayo adiga haddii codkaaga uuna buuxi karin waxa uu ka hadlaayo codkaaga hadduuna ku fadhin ma lagu dhiibaayo waryaan naagtaada intaynan canugtaha aynan dhalin aniga addoontayda ahaa jirtay waxaan tuuladan joogo dhanna aniga abisade waxaan doona ayaan ku samaynayaa mustaqbalka wallaahi horta qofka cimrigiisay ku xidhan tahay adduunyadu waa kuu sii dhiibe maalinba maalinay kuu sii dhiibe laakiin adii brofeshino kale inaad leedahana waa wanaagsantaha hal brofeshinaal aadna ku ekayn mustaqbalka noloshayna inaan hormarinno ayaan ku rajaweynaa insha allah